السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أنا وعصب تهين وصابير هدي هرجوك توكم عصب تهين لجوجاga waxaan soo qaadan doonaa qodobada ugu dambeeyay sportska ugu horeey Arne Slot oo saaki aroortii nagu soo jarmaaday wareysiga kulanka hore ee Brentford Cristiano Ronaldo oo sameynaya laba ciwaan iyo kulamada ugu soo horeeyay ee Premier League maalinta Sabtida la ciyaari doono. Ugu horreyn waxaan ka bilaabi doonaa Arne Slot oo saaki aroortii ahaan nagu soo jarmaaday wareysigiisa kulanka Brentford ka hor ka hadlay qodobo loo baahnaa in ay jamaahirta Liverpool ay maqlaan. Waxa uu hore Joe Gomez oo la weydiiyay su'aasha ahayd Joe Gomez miyuu ka mid yahay playerada squadka soo xulan doonto. Su'aashu waxa uu kaga jawaabay why not, waxa uu naga mid yahay player anaga naga tirsan maxaa yeelay wuxuu ku soo dahay Euroga, taasi ayaa keentay inaan kulankii ugu dambeeyay aan soo qaado waayay, balse kulankan soo socdo waxa uu ka yahay qayb kamid ah waxaana uu soo qaatay caalamiinta fara badan. Haddana waxa uu diyaar yahay in kulankaasi nagala qayb qaato nagala jabhadeeyo. Su'aasha kale xigta ayaa ahayd sababta loo iibinayo maxay tahay da'yarta ee Liverpool. Waxa uu ku jawaabay waxaa jira ciyaartoy fara badan oo akaadimiyada ay soo saarto malaayiin gaaraya una baahan in waqti la siiyo. Waqti u badan aniga player fara badan squadkayga aad ayuu u weyn yahay, taasi ayaa keentay in aan playerada qaarkood aan fursad siiyo in ay noloshooda ku horumariyaan iyo xitaa naadiga ay tagayaan ee horumar weyn ka gaarsadaan. Su'aasha xigta ayaa ahayd maxay tahay kambiga horeeta ee kulanka Ipswich ee u liidatay kambiga labaad aad ku rukac weyn aad sameysay. Waxa uu ku jawaabay Arne Slot asiguna iska waalin, waxa uu dhahay xaqiiqatan ay bixisay energy aad u fara badan, taasi ayaa keentay in kulanka aan xakameyn weyno, balse kulanka labaad waxaan garowsanay energy-ga ay bixinayso inaan ka faa'iideysano aan abuurno fursado mid lamid ah fursadaha ay abuurayaan, waxaana inoo soo korshay inaan guusha ku raacno 2-0. taasi ayaa keentay inaan fursadeeni kaga faa'iideysano. waxaan rajeyn doonaa in aan wax ka bedeli doono, waana isu sheegnay inay taasi aysan soconaynin, balse ciyaartoydeyda dhammaan waxay ku diyaar u yihiin in longa seasonka soo socdo ay u dagaalami doonaan si isku mid ah. intaas ayaan ka soo qaadanay halka Cristiano Ronaldo oo laba ciwaan sameynaya asigoo YouTube-kiisa ku soo biiray 24 saacadood gudaheeda ku gaaray 30 milyan. waliba waxa ama kaag ku noqday YouTuber fara badan oo intaas sano ugu horeeyay speed kaasi oo soo qaatay stream live oo ku jiro leeyahay aniga muddo 5 sano ah ayaa halkaan ku jira YouTube-ka nina one day gudaheed ayuu wuxuu ku gaaray 30,000. ciwaan kale oo sameynaya waxay tahay naadigiisa Al Nassr ayaa horyaalka bilaabashada waxay hal dhaaf waayay, halka ciwaanada Cristiano Ronaldo oo ku soo laabtay goolinta goolka uu dhaliyay ayaana qayb ka noqday in ciyaarta ay ku dhamaato 1-1. kulanka ugu soo horeeyay ee Premier League aan soo qaado doono waxay tahay Brighton iyo Manchester United. Ligada Brighton ayaa lagu ciyaari doona 7 duhurnimo ayaa soo gali doonta, halka Tottenham iyo Everton ay tahay kulan kale oo adag. waxa uu dambeeyo Arsenal iyo Aston Villa. haddii aad ka heshay muuqaalkan gaarsiga asxaabtaada waad ku mahadsan tahay la joogaaga.